Inkastoo muddooyinkii u dambeeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ay ka deeriyeen xaaladda nololeed, midda nadaafadeed iyo ciriiriga ka jira xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo, ayaa haddana waxaa maanta booqday xabsiga dhexe xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Idriis Cabdi Dhakhtar iyo Xildhibaan Cali Cadow oo ka wada tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan xog wareysi ah la qaatay kusimaha taliyaha xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo, wuxuuna ugu warbixiyay guud ahaan xaaladda maxaabiista ku jirta xabsiga, mushaar la'aanta ciidamada asluubta ee ka shaqeeya xabsiga, iyo sidoo kale ciriiriga dhismaha ama dhulka uu ku fadhiyo xabsiga. Xaalad iswareysi iyo indheendheen qeybaha xabsiga uu ku kooban yahay kadib waxaa ugu horeyn ujeedka booqashada mas'uuliyiinta xabsiga ka warbixiyay kusimaha taliyaha xabsiga magaalada Baydhabo. maanta waxaan soo booqday xubnaano oo dawladda dhexe xabsiga dhexe. Xildhibaan Cali Cadow oo isna goobta ka hadlay ayaa dhankiisa muujiyay in cabashada saraakiisha asluubta magaalada Baydhabo iyo xaaladda ay kula kulmeen xabsiga ay kula laaban doonaan Muqdisho, isla markaana ay bandhigi doonaan mas'uuliyiinta sarsare ee dowladda federaalka Soomaaliya. wali ardayda oo tanjiilan wala isku dareema karo wali oo nagati dawladda la weydiiyaan insha Allah wali bay sinsi hortaan shaqaysan kabadin sidii lay ku wadanka la shaqeeyo kasto wadanku mushaara waa saasa wala ay nagnay insha Allah in la arkay inuu nasiib dalaalan dawladda ardayda usadan. Xildhibaan Idriis Cabdi Dhakhtar oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana hormuud ka ah booqashada xabsiga magaalada Baydhabo ayaa tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya looga fadhiyo dayactirka xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo. Wuxuuna sidoo kale xusay Xildhibaan Idriis Cabdi Dhakhtar in shirkadda ganacsi ee Hormuud looga baahan yahay in ay gacan ka geysato wax ka qabashada waxyaabaha noocan oo kale. Tiisan kor qabtan xabsiga ku wiinay maamulka Koonfur Galbeed waa xabsiga dhexe leeyahay degmada Baydhabo konton sano dhisay wal isbedel saasa ilaa hadda ma leh soo had warbixinta neysi 128 qof ka hirin 9 qof wal xukumay تمي أفرقف نقولوا حكم دلوا ولا جرانا ما إلا راي أنت أسقف أو كجرت قل كيبتهم إلا مقف إلا ما إلا راي تمي سدد يقف كيبك جر حبس الدائم الجر دولة الدحاء تلسك عيدك أسلوبتي يما إلا راي ولا يورد قاله راشين ولا إيدان بيوي لكن askartirood walaal shay qiyaastay intii 70 iyo 7 qof 77 qof oo heegan 128 qof isku bedelayaan oo libirood mashaarin helno markuu wala fadane hormuud hadda si toos ah taakulan wala siyaasad goboladaas dhexe iyo gobol xamar iyo meel raay maxaabiista galanta kaayt wala fadane mas'uuliintii in meel raay hormuud wal ku qabadaan xabsigan dhexe Baydhabo ama nin dhisan سيسون كور قبتان ميل راي dhaqaalo badan ah galay yeelay ma shirkado badan meel ruugan hay'ado samafal badan ruugan markan waa wala hay'ado intaas oo hay'ado xataa si toos ah in qaabilsan ciidanka asluubtii ruugan. Xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo ayaa dhismo ahaan u muuqda mid qadiimi ah, wuxuuna dhisan yahay in ka badan 50 sano iyadoona wali aanan helin wax dayactir ah oo looga sameeyay tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii xukuumaddii dhexe ee dalka. Xasan Kulmiye Afrax, TV-ga Puntland, Baydhabo.